annagu sidaa ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto la socoto bariyahan oo dhan waxaan wada xaajood kula jirnay dawladda waxaan kala hadlaynay qadiyad badan oo ay kamid ahayd qadiyada banaanbaxa waa ogtihiin heshiisaan ku gaarnay banaanbaxa midowga murashaxiintu inuu qaban qaabiyo dawladuna doorkeeda dastuuriga oo waajibka lagu leeyahay xukuumadana ay qaadato oo ah in ay amniga sugto banaanbaxayaasha amnigooda inay sugto waa ku heshiinay waa ku ballanay meeshiyaan ku ballanay waxaasoo dhan dood dheer oo waxay soo martay maalin walba meel laga doodayo wax laga doodayo meeshay diideen meel oo lagu xiroonayo isbartiibay waxbay sheegeen duruufaha jira covid-ka awgood dadka in meel lagu xireeyo annagana waa nala khaldantay meel bannaan oo open air oo dadku ay kala durga karaan inaan geynaan go'aanka waa ku adkaysana way aqbaleen waa ku heshiinay daljirka daahsoon in banaanbaxa lagu dhigo sidaas ayadoo ay taagan tahay oo ciidan amnigii annaga aan saas ugu wareejinay annagana qaban qaabadeenna caadiga ku jirno maanta waa ka warqabtaan daljirka waa xiran yahay ma aha daljirka kaliya magaaladoo dhan ma xiran number 4 hadda inta noo jirta ka bilaaw ilaa maxaa ku yiraahdo waxaad geysaa magaalada waqooyiga muqdisho meesha ugu dambeysay magaalada waa xiran tahay ciidan lagu daadiyay wadooyinka la xiray daljirka ciidan badana la dhoobe xiraaba laga dhigay ciidana daljirkii banaanbaxa lagu qaban qaabina laga dhigay marka dadka Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan u sheegno dawlad meeshan dadka jooga xaaladoodu waa sidaas dawladnimayna dhowreyn dastuurayna dhowreyn qawaaniin kalena dhowreyn ballama iyo heshiis lala galaysan dhowreyn mar walbana been inay sheegaan maalin ay yiraahdaan nin ma daljirka daasoo inta taga hadlay maalinta dabana banaqa waxay sheegi doonaan haddana waxay rabaan inay sheegaan waa nasiib darro weyn oo nahaysato dadka Soomaaliyeed waxaan rabnaa marka inay fahmaan laba arrimood qodob waaye meel qof banaanbaxayo tabeelo wato codkiisa inuu cabiro rabo dastuurkan uu ogol yahay ninka ay dhibayseen oo adkaysa karina diidaayo ee jidadka xiraa militariga ciidamadii iyo wixii booliisku wixii dhan banaanka soo dhiganayo yaa biri dadka Soomaaliyeed inta soo dhaqaaqaan ayagoo xor inta isku yimaadeen codkooda si xor ay meel ugu ridayaan macnaha ay labadaas arrimood raba dadka Soomaaliyeed inay isbarbar dhigaan waa qodobka kale ciidamada maanta wadooyinka Muqdisho taagan iyo qalabka ay haystaan ee ay wadooyinka ku xireen ay ku taagan yihiin u haystaan hal la fahmo gabar iyo wiil Soomaaliyeed oo banaanbaxay loo soo dhigay inay u haystaan qatarta shabaab dalkan uu ku hayna meeshii taagantaa ogtiin shabeellada hoose shabeellada dhexe hiiraan galgaduud gado jubbooyinka meel aanu maanta shabaabkii tahdiid aanu ku hayn oo aanu saas u sii socon malaha joohara tahdiid ku jirto dhuusamareebaa ku jirto intii ka sokayso dhammaa ku jirta maxaan ku yiraahdaa jubbooyinka iyo meel walba ku jira gadaa ku jirta oo ciidan farbadan joohara laga qabanay ciidankii loogu talagalay beebayaashii iyo qalabkii loogu talagalay wadooyinka Muqdisho waa kuwa dhex taagan madaxweynihii hore ee weli ka raaraca maxaan ku yiraahdaa xukunka iyo talada qarka uga dhaganay deyla meesha maanta maray waa intaas dadka Soomaaliyeed inay fahmaan rabnaa annagu markii sida gudoomiyaha u sheegay banaanbixi berri dhici maalin kama tanazulin mana ka tanazulayn waa la qabanaa banaanbixi maalinta la qabanayo ku haboon tahay waa soo sheegaynaa amnigana annaga suganayno ilaan wax kale noo dhiman malaha haddaan dhaana amnigiina waa kana suga aan jidkii nabad ku soo marno taas ay ka dhalatay hadda inaan banaanbixin dastuurka aan u leeyahay inaan ka tanazulno ma laakiin amnigeennana marka sida aan u suga karnay cidii aan kaashan karnay inay nala sugto amni inay nagala shaqeyso ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo saraakiisha ciidamada qalabka sida waxaan rabaa inaan u sheego